madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa digniin u diray shirkadaha ka howlgala deegaanada maamulka Soomaaliland madaxweynaha ayaa kaga digay shirkadahaasi in ay taageero u fidiyaan maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kale kuwa Daacish ee ka dagaalama buuraleyda caalamiska ee gobolka Bari Cabdiraxmaan Cirro ayaa carabka ku adkeeyay in ay tilaabo ka qaadi doonaan isla markaana ay sharciga waafajin doonaan cid kasta oo lagu helo in ay taageero u fidiso maleeshiyaadka al-shabaab iyo Daacish waa kan madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo arrimahaasi ka hadlaya dadka dambiilayaasha ah sida kuwa ka ganacsada daroogada musuqmaasuqa iyo argagixisada ayaa ku shaqaysta ama maalgelin ka hela nidaamka maydhaanka lacagaha sidoo kale waxay daciifiyaan dhaqaalaha iyo nidaamka maaliyadeed ee dalalka sida waxa uu khatar ku yahay qaranka ammaankiisa horumarkiisa dhaqaalaha iyo kalsoonida dunidu ku qabi karto bangiyadeena iyo nidaamyadeena maaliyadeed sida la dagaalanka maydhaanka lacagta iyo ka hortagga maalgelinta argagixisadu waa waajib waana sharci la dagaalanka maydhaanka lacagaha iyo ka hortagga maalgelinta argagixisadu waa waajib saaran muwaadin kasta iyo hay'ad kasta oo maaliyadeed ama dawladdu ha lahaato ama private ha ahaato waynu dhammaanteen u hoggaansanaa mabaadi'da daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dadaalka aynu doonayno inaynu isku kaashanno sidii aynu nidaamkeena maaliyadeed uga ilaalin lahayn faldambiyeedyada iyo dhaqamada wax u dhimaya waxaan mar kale ku celinaya in la dagaalanka maydhaanka lacagaha iyo maalgelinta argagixisadu aanay ahayn shaqo gudashadeeda laga filayo hay'ad kaliya balse ay tahay shaqo qaranka oo dhan u taala mudnaan gaarana u leh sida waxa waajib ah in dhammaan daneeyayaasha ay khusayso ay muujiyaan in ka go'aanshiyaha hirgelinta waxa ay dan u tahay ilaalinta qarannimada ilaalinta dadkeena aynu isku kalsoonaan iyo horsocod iyo hal-adayg ku wada shaqayno ilaashanno danaha inaga dhexeeya si aynu dalkeena Soomaaliland ugu abuurno nidaam maaliyadeed oo si siman uga wada faa'iideysan karaan dhammaan shacbiga Soomaaliland iyo xukuumaddiisuba kalsoonina lagu qabi karo oo dunidu ku kalsoonaan karto hadalkan ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka Puntland uu dhowr jeer hore uu sheegay maleeshiyaadka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda caalamiska ee gobolka Bari ay qaarkood ka soo galeen deegaanada maamulka Soomaaliland hase yeeshee Soomaaliland ayaa beenisay eedeynta kaga timid dhigeeda Puntland